بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة وناكسن وأفر يتوانك بشا ماج سنة كلا بكون لباتن يشن أو كبهجن أفر يتوانك بشا رمضان سنة كون أفر بقول أفرتن يلح تاريخ الهجرية ده كسود وادا تركيا أو سجول اتجابيي جنتال كي وجهريي لتك مراكبته أو لجا جري جوتش بدأ قوسه فاهفاهن يجنتال كان waxa uu yahay iyo waxa ay uga dhigan tahay arintani Turkiga ayaan idin soo gudbin doonaa. Ammaanka hogaamiyaha Xuutiyiinta Cabdimaaligan Xuuti ayaa la adkeeyay kadib markii Israa'iil ay toos uga hanjabtay hogaamiyaasha ururka reer Yemen. Waxay sidoo kale tani ka dambeysay kadib markii hogaamiyaha Xuutiyiinta uu si cad u sheegay in laga bilaabo maalinimadii qamiista ay weerari doonaan markab kasta oo Israa'iil laga leeyahay. Gudaha Israa'iil waxaa cirka ku shareeran oo gaartay heer warbaahinta hawada la isku mariyo hadalla adag khilaafka Netanyahu iyo hay'adda sirdoonka gudaha Israa'iil ee Shin Bet. Macluumaadyo kala duwan arrintan oo ay ka hadleen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hay'addaasi kuwa xilal hore u soo qabtay Netanyahu laftigiisa oo qayliyay macluumaadkaasi oo idil ayaan idin haynaa. Taliyihii hore ee hay'addaasi ayaa waxa uu ku hanjabay in haddii Netanyahu uu sameeyo sharci darro uu bannaanka soo dhigi doono wax walba isla markaasna sir badan oo hayo bannaanka uu keeni doono. Ruushka oo hadalla carag ku abuuri kara dowladda cusub ee Syria ka dhex sheegay fadhi uu lahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay albaabada u xirnaayeen. Haddaba muxuu yahay hadalkan Ruushka uu sheegay? xog cusub ayaan arrintan idinkaga haynaa. Wararkii ugu dambeeyay arrimaha wada xaajoodka ka socda magaalada Dooxa ee waddanka Qatar sidoo kale warar baan idinkaga haynaa iyadoo Xamaasna ay soo saartay war ka duwan warkii xalay ee warbaahintu ay tabinaysay. Ruushka ayaa waxa uu sheegay hadal carag ku abuuri kara maamulka cusub ee Syria ee uu hogaaminayo Ahmed al-Sharaa. Arrintan waxay la xiriirtaa dhacdooyinkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalooyinka ku yaala xeebaha waddanka Suuriya iyo dadkii halkaasi lagu laayay. Sidaad kula socoteen wararkii shalay aan idin soo gudbinay ilaa iyo 9,000 oo qof ayaa waxay sheegeen Ruushku inay gabaad ka dhigteen labada saldhig ee Ruushku uu ku leeyahay magaalooyinka Latakia iyo weliba Tartus gaar ahaan saldhigga Xamaamiim ku yaala. Arrintan ayaa waxaa la sheegayaa in safiirka Ruushka ee qaramada midoobay uu ka dhex sheegay fadhi gaar ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu lahaa. Fadhigan wuxuu ahaa fadhi saxaafadda aan loo ogolayn. Macnaha fadhi aan loo ogolayn in warbaahin toos looga daawado. Laakiin dad ka qayb galay fadhiga ayaa warbaahinta wax u dusiyeen macluumaadkii Ruushka halkaasi uu ka sheegay. Arrintan marka waxay ku soo aadaysaa xilli Ruushka uu doonayo inuu sii haysto labada saldhig ee uu ku leeyahay waddanka Suuriya. haddaba eegna warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo arrimahan ku aadan. waxaa la sheegayaa in Ruushku uu si adag u dhaleeceeyay hoggaanka cusub ee Syria intii lagu shiray shir albaabada u xirnaayeen oo golaha ammaanka qaramada midoobay uu yeeshay. waxaana uu ka digay korarka kooxaha mintidiinta ee halkaasi ka jira isla markaasna wuxuuba isbarbardhig ku sameeyey rabshadihii ka dhacay xeebaha Suuriya dhowaan iyo xasuuqii Rwanda ka dhacay 1994 sida Reuters ay ka heshay laba ilo wareed oo xogogaal ah. dhaliisha Ruushka ee hoggaanka cusub ee Syria ayaa timid inkastoo Ruushku uu doonayo in uu sii haysto labada saldhig ee muhiimka ah uu ku leeyahay xeebaha Syria. waxaana toddobaadkii hore halkaasi ka dhacay rabshado dhex maray kooxo taageersan xukunkii Bashar al-Assad iyo ciidamada nidaamka cusub ee Syria taas oo sababtay in halkaasi ay ku dhintaan 100 qof. rabshadaha ayaa qarxay 6 bishan kadib markii la weeraray ciidamada ammaanka ee xukuumadda cusub. waxaana mas'uuliyadda weerarkaasi sheegatay saraakiishii hore ee daacadda u ahaa madaxweynihii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad. weerarkaasi wuxuu sababay in dowladda cusub ay bilowdo olole ciidan taas oo lagu eedeeyay in lagu dilay dad ka tirsan qowmiyadda Calawiyiinta ee uu ka soo jeedo Assad. waxaana dilkaasi lagu eedeeyay xoog kooxada la xiriirinaya dowladda cusub. Ruushka sanado badan ayuu taageerayay Assad ka hor intii xukunka laga tuurin. Talaadadii waxa uu sheegay in Syria ay doonayaan inay ahaato mid isla markaasna loo baahan yahay
إلا احترام ضمان قوميدها هذا الذي شركة سيو كتشيدي سفيرك روشك قرمدا مدوبي فسلاي نبنزيع أي waxa uu sheegay shirkan in dhacdooyinka halkaas ka dhacay ay ahaayeen kuwa xaq jirnimo ku salaysan wuxuuna tilmaamay in arrintaas ay la mid tahay xasuuqii 1994kii Rwanda ka dhacay oo Tutsiga iyo Hutuga dhexaadka la laayay iyadoo weerarkaas ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka lagu magacaabo Interhamwe ee Hutuga mayalka adag sida ay xaqiijiyeen ila wareer shirka ka qayb galay sidoo kale ila wareeradu waxay sheegeen Nabadzia in markii shirku uu soo dhamaaday uu saxaafadda ka gaabsan inuu wax u sheego wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay weydiisay in uu isbarbar dhigi karo dhacdooyinka ka dhacay xeebaha Syria iyo xasuuqii Rwanda wuxuu yiri waxaan iri wixii aan ka iri shirka xiranna banaanka uma keeni karo macnaha waxa weeye wixii aan sheegi karay shirkaasi albaabada u xirnaayeen ayaan ka sheegay laakiin banaanka inaan keena ma doonayo macnaha muxuu ilaalinayaa marka haddii hadalkan uu si cad u sheego waxay noqon kartaa inay ku qabsato Suuriya oo ay tiraahdo Ruushka annagii baa dhibaato nagu tihinba saldhigiina naga rarto laakiin waxa leeyahay Ruushka wuxuu isku muujinayaa inuu yahay quwad weyn oo rabta inay ismuujiso gaar ahaan arrimaha Syria oo Turkiga iyo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka aan looga dambeyn isaga laftigiisa inuu ku yeesho galaangal marka diblomaasiyadu waxay leeyihiin waa qayb ka mid ah cadaadiska uu rabo inuu Saar Axmed al-Sharaac uu yiraahdo ciidankaaga geystay xasuuq si aan ku difaaco laftigaaga saldhigyada iida marka waa gorgortan arrintaasi weli ma jiro war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda Axmed al-Sharaac laakiin warkan ilaa iyo hadda ma ahan war saxaafadda loo wada sheegay dadka shirka ka qayb galay ee diblomaasiyiinta safiirada waxa la socda waad ka warqabtaan golaha maanka safiir kasta ku xigeenkiisii wakiilka joogtada ah shaqaalaha xafiiska baa qaybta daba ka fadhiya marka qof ka mid ah ayaa waxa laga yaabaa marka wakaaladda wararka Reuters inuu warkaas siiyey wakaaladuna warkii way soo tuurtay marka dadka qaarkood marka waxay leeyihiin armaytaan arrintan Syria Axmed al-Sharaac iyo Ruushka madax in isku gelinayo reer galbeedka arrintan ay ka dambeeyaan wax suurtagal ah dabcan way kala cadan doontaa arrintaasi laakiin xukuumadda Axmed al-Sharaac ma aqbali doonto meel 1 milyan oo qof lagu dilay waa Rwanda in la barbar dhigo wixii ka dhacay xeebaha Suuriya oo dhowr boqol oo qof la sheegay in lagu dilay oo waliba boqol iyo in ka badan ay yihiin ciidanka maamulka Axmed al-Sharaac ilaa 200 in ku dhowna waa maleeshiyaadkii daacadda u ahaa ama haraadigii Bashar al-Assad inta kale waa rayid dabcan waa la sheegay dad badan rayid in la dilay oo markaasi loo dilay argosi laakiin waxa leeyahay in isbarbar dhiga Ruushka 1 milyan meel lagu dilay iyo meel dhowr boqol qof lagu dilay ma iskeenayso waa arki doonaa marka wixii jawaab ka timaada maamulka Suuriya qodobkaas halkaas aynu ku dhaafno marka waxaynu eegaynaa dalka Turkiga waxaynu ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay inuu waday qorshayaal balaaran oo xagga ciidamada ah hub cusub oo soo saarayay diyaarado maraakiibta dagaalka taangiyada dababaadka dagaalka baabayaal iyo waliba gantaallo laakiin markii ugu horeysay taariikhda Turkiga saacadihii la soo dhaafay wuxuu tijaabiyay oo ku guuleystay gantaalada laga rido gujiska badda hoostiisa waa gantaalo loogu talagalay in lagula dagaalamo maraakiibta haddaba tijaabadii iyo gantaalkii oo la ridayo iyo mas'uuliyiintii ciidamada Turkiga oo arrintan aad ugu faraxsan warbixintaasi oo dhan waxaa noo soo jeedinaysa wariyahayaga Nimca Cabdikariin Timacade waxaana laga ganay markab gujis ah taasi oo calaamad u ah horumarka weyn ee awoodda badda ee dalkaasi tijaabadan oo la sameeyay saacadihii la soo dhaafay waa markii ugu horeysay ee gantaal toos loo hago laga ganay gujis uu leeyahay Turkiga taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka tirada yar ee haysta tiknoolajiyadda casriga ah ee weerarka laga soo qaado biyaha hoostooda xogayaha wasaaradda difaaca ee Turkiga Haluk Gorgon ayaa tijaabadan ku tilmaamay horumar aad u weyn oo ku saabsan awoodda difaaca ee Turkiga gantaalka Atmaka oo ay soo saartay shirkadda Roketsan ayaa qayb ka ah hubka badda ee Turkiga
tan iyo sanadkii 2021 waxaana badanaa loo adeegsadaa maraakiibta dagaalka sida kuwa gantaalada rida, kuwa diyaaradaha xambaara iyo kuwa kormeerka. si kastaba ha ahaatee guusha tijaabadan laga soo ganay gujiska waxay muujinaysaa in gantaalku uu si sahal ah u beegsan karo yoolkiisa xitaa gujisyada, taasi oo si weyn u xoojinaysa dabacsanaanta howlgalka iyo awoodda cabsigelinta ee ciidanka badda ee Turkiga. tijaabadan ayaa sii xaqiijisay saxnaanta iyo waxtarka gantaalka, taasi oo muujinaysa in uu yahay hub casri ah oo wax ka bedeli kara dagaalka badda. khibrada dhanka difaaca ayaa tilmaamay in tijaabooyinkani ay caddeyn u yihiin in Turkiga uu awoodo in uu bartilmaameedsado maraakiibta cadowga xitaa isaga oo adeegsanaya gujisyada, taasi oo sare u qaadaysa awoodda waxyeeleynta ee ciidanka badda ee Turkiga xilliyada dagaalka ee suurtagalka ah. gantaalka Atmaka waa gantaal si sax ah loo hago oo masaafo fog gaara, waxaana loo nashqadeeyay inuu si aad ah u beegsado maraakiibta cadowga iyo bartilmaameedyada xeebaha. waxa uu leeyahay nidaam horumarsan oo hagid ah iyo marin ah, taasi oo u sahlaysa inuu raaco kuna dhaco bartilmaameedyada dhaqdhaqaaqa xitaa xaaladaha adag. saameynta istiraatiijiga ah iyo isbeddelka goboleed. ku daridda gantaalka Atmaka ee hubka gujisyada ayaa la filayaa inay xoojiso booska istiraatiijiga ah ee Turkiga ee badda Mediterranean-ka iyo badda Aegean-ka, halkaasi oo ay ka jiraan murano dhanka xuduudaha ah iyo walaacyo amni oo sare u kacay, iyadoo xiisadaha gobolkana ay sii socdaan. awoodda Turkiga ah inay weeraro qarsoon ku qaadi karto gujisyada waxa ay siinaysaa faa'iido istiraatiiji ah oo weyn. guushan ayaa qayb ka ah dadaalka ballaaran ee Turkiga ee lagu yareynayo ku tiirsanaanta tiknoolajiyadda difaaca ee dibadda laga keeno, isla markaana lagu horumarinayo nidaamyada militari ee maxalliga ah. dalka Turkiga ayaa horey sumcad sare uga helay horumarka uu ka sameeyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, nidaamyada difaaca, gantaalada iyo tiknoolajiyadda dagaalka badda. iyada oo tijaabooyinkani si guul ah loo fuliyay, waxaa la filayaa in ciidanka badda ee Turkiga ay si weyn u xoojiyaan awoodooda weerarka biyaha hoostiisa ah, taasi oo ka dhigaysa ciidan xoog badan oo wax ka bedeli kara amniga badda ee gobolka iyo caalamkaba. horumarka joogtada ah ee tiknoolajiyadda militariga casriga ah waxa uu xaqiijinayaa doorka Turkiga ee ah inuu noqdo hogaamiye muhiim ah oo saameyn ku leh dagaalka casriga ah ee badda iyo hal-abuurka difaaca caalamiga ah. Nimca Cabdikariim Timacade aad bay u mahadsan tahay. waa hagaag. haatan waxaynu eegaynaa dhanka Yemen. saacadihii la soo dhaafay waxaan idiin soo gudbinay warbixino ku saabsan Xuutiyiinta inay wacad ku mareen in ay laga bilaabo maalintii Khamiista baagsan doonaan maraakiibta Israa'iil laga leeyahay iyo weliba kuwa Israa'iil lagu xiriirinayo. sababtun ay tahay Israa'iil go'doominta ay ku hayso marayka Gaza iyo goodiska ay ku cagajuglaynayso inay dib ugu laabanayso dagaalka. haddaba waxaa soo baxay war sheegaya in la adkeeyey ammaanka Cabdimaalig al-Xuuti, hogaamiyaha Xuutiyiinta. aynu eegno warbixin arrimahan ay ku qoreen wakaaladaha wararka iyo weliba warbaahinta. waxaa la sheegayaa in ururka Xuutiyiinta ee loo yaqaano Ansaarullah ay qaadeen tillaabooyin dheeraad ah oo lagu xaqiijinaya amniga hogaamiyahooda Cabdimaalig al-Xuuti kadib markii uu ku hanjabay in uu dib u bilaabi doono weerarada ka dhanka ah maraakiibta Israa'iil lagu xiriirinayo. sidaasi waxaa qoray warsidaha Newsweek ee ka soo baxa waddanka Mareykanka. ilo wareed aan la magacaabin oo ka tirsan kooxda ayaa u sheegay wargeyska ama warsidahaasi in hoggaanka Xuutiyiinta uu yahay bartilmaameed muhiim ah, gaar ahaan tan iyo markii ay bilaabeen weerarada ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga iyo kuwa militariga ee la tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin Israa'iil. amniga ayaa la adkeeyey iyadoo wararkuna sheegayaan in Israa'iil ay kor u qaaday weerarada militari ee gobolka, taas oo sare u qaaday walaaca la xiriira weeraro qorshaysan oo ay ku qaadi karta Israa'iil hogaamiyaasha Xuutiyiinta oo ugu horeeyo Cabdimaalig Badruddin al-Xuuti. Xuutiyiintu waxay gacanta ku hayaan inta badan waqooyiga Yemen, waxayna noqdeen urur muhiim u ah dagaalka ka socda marayka Gaza. xiisada gobolkana waxaa la sheegay inay ka noqdeen udub dhexaad, gaar ahaan tan iyo markii ay beegsadeen maraakiibta ganacsiga ee gooshaysa marinada muhiimka sida badda cas iyo gacanka cadmeed. weeraradaasi weerar kale oo jawaab u ah ayaa Israa'iil ay qaaday. waxaana la sheegayaa sidoo kale Mareykanka iyo Britain in iyaguna ay wadeen weeraro dhowr bilood. isha warbixintu waxay xustay in Xuutiyiintu aysan muujin cabsi ay ka qabaan taariikhda Israa'iil ay u leedahay weerarada qorshaysan, laakiin waxay sheegeen in haddii cadowgu kor u qaado weerarada iyaguna ay kaga jawaabi doonaan mid la mid ah si aan shaki lahayn. tan iyo bishii Oktoobar 2023 markii uu dhacay dagaalkii duufaanta Al-Aqsa,
xogaga Xuutiyiintu waxay garab istaageen Falastiiniyiinta waxaana ay sheegeen in inta Israa'iil weerarka ku haysa marayka Gaza Israa'iil inaysan ladi doonin waxaana warku intaasi ku daraya in haatan Xuutiyiintu loo arko in ay u yihiin bartilmaameed Maraykanka iyo xulafadiisa iyo waliba Israa'iil inkastoo Israa'iil iyadoo ay cadaysatay inay toos u beegsan doonto hogaamiyaasha Xuutiyiinta haddana wali Maraykanku si cad uma sheegin in uu beegsanayo madaxda Xuutiyiinta laakiin weerar culus ayaa Maraykanka iyo Britain waxa la sheegay inay ka geysteen waddanka Yemen inta ay socdeen hawlgallada Xuutiyiinta ee ka dhanka ah Israa'iil iyo waliba maraakiibta Maraykanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka wixii walaha ee wararkaasi ku soo kordha waynu arki doonaa waa tahay goordha waxaan u gudbi doonaa gudaha Israa'iil oo qaylo dhaan iyo waliba khilaaf culus uu ka taagan yahay Netanyahu oo qaylo afka furtay oo leh waa la iin maalay aniga waxa lagu hayaa iin maal haddaba intaan u gudbin wararkaasi xalay intii la socotay barnaamijkii qubanaha waxaan idin soo gudbinay warbaahinta Israa'iil oo faafinaysay warar ku saabsan in wadahadaladii ka socday magaalada Dooxa ee waddanka Qatar la gaaray natiijooyin horodhac ah oo ah in ilaa iyo bisha April 20keeda la kordhiyo heshiiska rasaas joojinta laakiin heshiiskaas war ka duwan ay Xamaas ay soo saartay warbaahinta Israa'iil waxay lahayd oo kale 5 qof oo ah maxaabiista Israa'iil ayaa la sii deyn doonaa iyo qaar ka mid ah meydadka laakiin ururka Xamaas mas'uul sare oo ka tirsan ayaa saacadii ugu dambeeyay warbaahinta la hadlay haddaba mas'uulkan oo lagu magacaabo Hazim Qasim ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay isku dayayso inay ka dulboodo qodobada heshiiska wuxuu sheegay inay ku taagan yihiin heshiiskii hore loo gaaray waxaana uu tilmaamay inay doonayaan in loo gudbo wejiga labaad ee heshiiska rasaas joojinta wuxuu sheegay inaysan diyaar u ahayn in dagaal ay galaan laakiin wuxuu yiri haddii nala soo weeraro dadka iyaga waa difaaci doonaa waxa kale oo uu sheegay in aysan ka gudbi doonin in loo gudbo wejiga labaad oo ah Israa'iil ciidankeeda inay kala baxdo marayka Gaza isla markaasna la hirgeliyo wixii lagu heshiiyey 19kii bishii January hadalka markaa wuxuu u muuqdaa Xamaas inaysan ku qanacsaneen soo jeedinta la sheegay in uu soo jeediyey ergeyga gaarka ee Donald Trump ee bariga dhexe Steve Witkoff oo ah in ilaa iyo 20ka bisha Abriil heshiiska rasaas joojinta la gaarsiiyo 5 maxbuus la soo daayo iyo qaar ka mid ah meydadka la soo wareejiyo marka waxay u muuqataa Xamaas inay arrintaas diiday dabcan wixii ku soo kordha barnaamijka wararka maanta oo saacada kadib soo geli doona ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo waxaan u gudbi doonaa goor dhow Netanyahu oo safarkiisii ugu horreeyay ku tegaya mid ka mid ah wadamada Yurub khilaafka isaga iyo ka dhex aloosan madaxa laanta sirdoonka ee Shin Bet iyo waliba madaxii hore ee laanta sirdoonka Israa'iil oo isna leh waxaan soo qofi doonaa wax walba oo aan ogahay oo Netanyahu lidi ku ah qaylada iyo buuqa Israa'iil ka taagan ma maleyn kartid Netanyahu laftigiisa afku furtay waa hagaag khilaafka Israa'iil iyo xaaladan kacsan intaan u gudbin Netanyahu ayaa safarkiisii ugu horreeyay wuxuu ka tagi doonaa Yurub tan iyo markii uu soo baxay go'aankii maxkamadda ICC ay ku dalbatay in la soo xiro waliba waddanku tegaya waa waddan saxiixay xeerarkii lagu dhisay maxkamadda dambiyada caalamiga arrinta la yaab kale waxay tahay oo halkan aan ka sii daynin 2 maalmood ka hor madaxweynihii waddanka Filibiin ayaa isagoo jeebaysan waxaa laga soo waday magaalada Manila ee caasimadda waddankaasi Filibiin waa magaaladii uu madaxweynaha ka ahaa iyo waddanka madaxweynaha uu ka ahaa dhowr sano ka hor waxa lagu haystaa wuxuu la dagaalamay kooxaha shuftada ee daroogada ka ganacsada iyo drugska oo waddankaasi la degay isaga qori qaatay wuxuu yiri qof walba oo qolyahan daroogada ka ganacsada hala toogto daroogada meelaha lagu gado iyo dadka ka shaqaysta iyo oo booliiskii nafti u keenay oo waddankii qalqal geliyay ayuu dagaal ku qaaday waxa lagu eedeynayaa marka dilal qaanuunka ka baxsan inuu fuliyay waliba asagii baa qori qaatay xitaa ninkii asaga ahaa isagoo ka soo laabtay jasiiradda Hong Kong ayaa airportka lagu qabtay waa la qabtay isla markiiba diyaarad baa la saaray waxa laga dejiyay magaalada Hague waddanka Holland
maxkamaddii ayaa iminka lagu bilaabay waxaa loo haystaa waddankiisa gudihiisa isagoo la dagaalamaya mukhaadaraadka maxkamaddu go'aanka ay soo saartay ee Netanyahu ka dhanka ahaa waa taagay haddaba ra'iisul wasaaraha waddankaasi Hungary ayaa wuxuu sheegay in uu soo dhaweynayo inuu yimaado Hungary Netanyahu laakiin mushkiladda haysataa waxay tahay meeshu mari doono sababtoo ah wadamada ku xeeran waddanka Hungary ayaga laftigooda waxay saxiixaan xeerkaas ma dhici doonta ayaga laftigooda in iska indhatiraan hirgelinta go'aankii maxkamadda haddaba aynu eegno warbixin arrimaha laga qoray saacadihii la soo dhaafay waxaa leeyahay Netanyahu ayaa markiisii ugu horreeyay tan iyo bishii November markii uu soo baxay go'aanka lagu soo qabanayo maxkamadda ICC ay soo saartay wuxuu socdaal ku tegi doonaa waddanka Hungary oo Yurub ka tirsan kadib markii uu ka helay martiqaad Viktor Orban ra'iisul wasaaraha waddanka Hungary haddii booqashadan ay dhacdo waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee Netanyahu uu ku tago Yurub laakiin waxa la leeyahay warqadda xiritaankiisa rasmiga ah markii ay soo baxday maalin ka hor ayaa casuumadan ay soo baxday loo fidiyey booqasho hore ayuu Mareykanka ku tegey safarkiisa laakiin wuxuu iska ilaaliyey Yurub inkastoo la leeyahay wuxuu maray hawada waddanka Faransiiska qaanuunka maxkamaddu wuxuu dhigayaa haddii qof ay doonayso hawada iyo badda iyo cirka uu soo galo in la qabto isagoo jeebaysana maxkamadda lagu wareejiyo madaxa xafiiska Orban ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku yiri qorshayaasha haatan jira sida ay yihiin Netanyahu wuxuu imaan karaa ka hor ciidda Passover-ka waa ciidda Yuhuudda oo dhici doonta 20 Abriil markii la xaqiijiyo waqtiga rasmiga ee booqashada dabcan waan shaacin doonaa annagoo tixgelin siinayna arrimaha amniga ee muhiimka ah telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu sheegay in booqashadan ay timid kadib martiqaad Netanyahu uu ka helay Orban inkastoo warqadda xiritaankiisa caalamiga ah la soo saaray maalin ka hor martiqaadka sida halka loo dhigay telefishinka ayaa wax intaasi ku daray in Hungary ay ka mid tahay wadamada saxiixay heshiiska Rome ee lagu dhisay maxkamadda dambiyada dagaalka kaas oo sharciyeynaya awoodda maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee The Hague balse taa bedelkeedii ra'iisul wasaaraha Hungary wuxuu carabka ku adkeeyay in Netanyahu uu si nabada ku imaan karo waddankaasi isla markaasna wuxuu sheegay in aysan jiri doonin wax aan xariga arrintan ayaa waxa noqonaysaa in uu jabinayo ra'iisul wasaaraha waddanka Hungary tilaabadaas ku aadan qawaaniintii maxkamadda waaye sharci meeshii la doono loo qaadi karo sida maxkamadda waxa la yiraahdaa waxay ka adag tahay Afrika Charles Taylor baa la saaray hogaamiyihii dalkaasi Liberia dagaalkii Rwanda laftigiisa dadka qayb qaatay baa la keenay Suudaan Umar Hassan al-Bashir baa la soo saaray laakiin Putin waa ka meesha hore maraya xitaa Sacuudiga tagi doona isagoo la kulmi doona Donald Trump nuclear baa istaabilaya ila hadli kara Philippines wadamada dunida soo koraysa Afrikaankana qorta la soo qabanaya waa hagaag waynu arki doonaa meesha ku dambaysa arrintaasi waa riba maalintiisa la yiri waaye gudaha Israa'iil marka aynu eegno khilaaf culus oo warbaahinta xitaa gaaray in la iskala hadlo ayaa socda waxay ka dhex tooran tahay madaxa laanta sirdoonka gudaha Israa'iil hay'adda la yiraahdo Shin Bet ninka lagu magacaabo Ronnie Pa iyo Netanyahu way kala tooran tahay Mariya dhiig leh kala furtay maalmo dhaweyto xitaa waxay gaartay in ninkan laga diido inuu ka soo qayb galo ama loo diido shirka golaha wasiirada isaga laftigiisa qaanuunku ku yurursaday wuxuu leeyahay aniga hawshayda waa hawl amni aniga waxaan taageerayaa dimuqraadiyadda sida hadalka u dhigay iyo in maxaabiista la soo daayay haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay warbaahinta Israa'iil ay qorayso telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu ka soo xigtay madaxa laanta sirdoonka ee Shin Bet in markaa uusan u joojin doonin cagajuglaynta Netanyahu waxa kaloo ka sii daray nin horey madax uga ahaan jiray hay'adan la yiraahdo Shin Bet oo lagu magacaabo Nadav Aragman ayaa waxa uu sheegay in haddii Netanyahu uu u dhaqaaqo wax sharci darro ah in isaga laftigiisa banaanka soo dhigi doono wax badan oo og yahay Aragman ayaa waxa uu yiri waa in si degdeg ah loo soo afjara dagaalka Gaza maxaabiista oo dhan waa in la soo celiyaa ma jiraan wax ka muhiimsan arrintaasi wuxuu kaloo yiri ma jirto sabab iyo muhiimad aan u sii joognaa marka Gaza Netanyahu ayaa ka jawaabay arrintaasi wuxuu yiri abidkay taariikhda Israa'iil ma dhicin in nin madax ahaan jiray oo hay'ad amni madax ka ahaan jiray oo si toos ah u hanjabo
ra'iisul wasaare xil haya isla markaasna si cad arrintaasi uu u sheego wuxuu yiri taas waa iinmaal waa baad waa Netanyahu ninkaasi wuxuu intaasi ku daray tani waa dambi lagu daray olole ka dhana madaxtinimadeeda isla markaasna wuxuu sheegay arrintaasi inay tahay mid uu hogaaminayo madaxa laanta sirdoonka ee Shin Bet ujeedada kaliya ee arrintan wuxuu sheegay inay tahay mid markaasi lagu diidan yahay in wax lagaga qabto laanta Shin Bet oo Netanyahu afkiisa uu ku leeyahay waxay ku fashilantay 7 Oktoobar weerarkii dhacay ra'iisul wasaarihiiba wuxuu leeyahay hay-addii gudaha Israa'iil amniga u qaabilsaneen way fashilantay hay-addii ma marka inay wax ka qabto laakiin waa lagu haystaa buu leeyahay aan ku soconno sheekada meel xubin maraysa wuxuu sheegay in arrintan ay tahay arrin aad u foolxun haddaba sidoo kale waxaa leeyahay Ronen Bar muddo dheer ayuu hay-addan madax ka ahaa waxaana la sheegayaa inuu haysto taageero inta badan mucaaradka aynu dhinac kale ka eegna marka wargeyska liirada iyo Dacwada Axranood ayaa wuxuu sheegay khilaafka Netanyahu iyo Ronen Bar u dhaxeeya inuu gaaray meeshii ugu sarreysay Netanyahu laftigiisa afka furtay sidaad maqlayseen adeegga Shin Bet laftigeedu baa soo hadlay war saxaafadeed bay soo saareen waxay leeyihiin hadallada ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu ee ku aadan eedeynta culus ee ka dhanka ah Shin Bet waa kuwa nasiib darro ah war saxaafadeed ay soo saartay laanto ayaa waxaa lagu yiri madaxa hay'adda Ronen Bar inta badan waqtigiisa wuxuu ku bixinayaa arrimaha amniga dib u soo celinta maxaabiista difaacidda dimuqraadiyadda sida ay sheegeen arrintaas sidoo kale waxaa soo galay qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo kuwa taageeraya Netanyahu waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee amniga qaranka ee Israa'iil ee xilka banaynaya Itamar Ben-Gvir wuxuu leeyahay waa in si degdeg ah loo eriyaa Ronen Bar laakiin waxaa taageeray hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid oo sheegay in hadallada Netanyahu ee ka dhanka ah madaxa laanta sirdoonka Israa'iil ee Shin Bet inay yihiin kuwa markaasi looga leexday wadadii saxda ahayd sida hadalka uu dhigay Lapid waxa intaasi uu ku daray in hadallada Netanyahu ay yihiin kuwa markaasi wax u dhimaya hay-addan ilaalisa ammaanka Israa'iiliyiinta waa sida hadalka uu yiri qamiistii Netanyahu wuxuu eedeeyay Ronen Bar waa madaxa laanta sirdoonka ee Shin Bet isagoo sheegaya ninkaasi inuu diidan yahay hay-adda in la maareeyo oo dib loo habeeyo waxa isna ku soo biiray dagaalka nin lagu magacaabo Yair Golan oo imikana madax ka ah xisbi ka mid ah xisbiyada Israa'iil mucaaradka wuxuuba taagan yahay isagu maafiyada dhabta ah waa kooxda xukunka Israa'iil haysta oo ku shaqaysanaysa been iyo been abuur arrintii marka meel xun ma maraysa meel xun bay ka degatay khilaafka waxa leeyahay meel adag u maraya marka waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha waa hagaag intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waa inoo barnaamijka xiga insha allahu jimco wanaagsan ramadaan kariim nabadgelyo